shirka golaha wasiirada oo maanta shir gudoomiyay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Bare ayaa looga hadlay xaaladda amniga guud ahaan dalka. Kulanka ayaa diiradda lagu saaray dardargelinta howlgalida dib u xoreynta deegaanada ay ku dhuumaaleysanayeen kooxda Al-Shabaab oo guulo waaweyn ay ka soo hooyeen ciidamada qaranka iyo kuwa deegaanka. Golaha ayaa sidoo kale ansixiyeen magacaabista maareeyaha iyo maareey ku-xigeenka hay'adda sharciyeynta adeegyada baaritaanka iyo beeraha Soomaaliyeed. Xubnaha la magacaabay ayaa kala ah Cabdi Maxamed Xuseen maareeyaha guud halka Liibaan Cabdi Xasan loo magacaabay maareey ku-xigeen. Magacaabistan ay maanta ansixiyeen golaha wasiirada ayaa ku timid soo jeedinta wasaaradda beeraha iyo waraabka xukuumadda federaalka Soomaaliya. Sidoo kale kulanka maanta ayaa lagu meelmariyay heshiiska is-afgarad ee ku saabsan arrimaha batroolka iyo gaaska oo u dhexeeya dowladaha Soomaaliya iyo Azerbaijan iyo xeerka xarunta shaqada ee ururka iskaashiga Islaamka. Horey Soomaaliya iyo Azerbaijan waxay u gaareen heshiis dhowr ah kadib markii bishani uu madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo wafdi uu hogaaminayay booqashadii ugu horeysay ay ku tageen Azerbaijan. Heshiisyadii hore ee la ansixiyay waxaa ka mid ahaa kobcinta iskaashiga waxbarasho, siinta deeqo waxbarasho ardayda Soomaaliyeed, horumarinta cilmi baarista iyo hal abuurka. Dhinaca amniga iyo difaaca, labada dal waxa ay markaasi ku heshiiyeen wada shaqeyn dhow oo ku aadan tababarada ciidamada, la dagaalanka Al-Shabaab iyo tayeynta hay'adaha amniga. Sidoo kale waxay isku afgarteen in la casriyeeyo maamulka dawliga ah iyada oo la dardargelinayo adeegyada dadweynaha iyo dowlad wanaagga. Sidoo kale waxaa markaasi la isla gartay in Azerbaijan ay Soomaaliya ay ka taageerto horumarinta tamarta gaar ahaan dhinacyada shidaalka, tamarta la cusbooneysiinayo. Sidoo kale waxaa markaasi la isla gartay in Azerbaijan ay Soomaaliya ka taageerto horumarinta tamarta gaar ahaan dhinacyada shidaalka, gaaska iyo tamarta la cusbooneysiin karo, taasi oo haatan la ansixiyay. Zamzam Maxamuud, HBM TV, magaalada Nairobi.